fiidiyogan waxaa iga duubay nacas dhalay oo ay oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. waa dhacdo la yaab anfariir iyo qaracan leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho. gabar Soomaaliyeed oo wiil aamintay isla markaana walaal iyo saaxiib ka dhigatay ayaa kaniini ku qalday isla markaana iyada oo miir beeshay waxa uu doono ka samaystay muuqaalkeedana ku faafiyay baraha bulshada. arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay ayaa gacan ka hadal ku dhow inay isku bedesho. gabadhan sidee loo qiyaamay waxaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay channelkeena guuxa wararka tube nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dheg ambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheer garayso ayaan kaa rajeynayaa. gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Fahma Cabdi isla markaana ka mid ah gabdhaha magaalada Muqdisho ayaa muddo ka badan 6 bilood rakaato lagu haystay. waxaana rakaatadan ku haystay wiil ay aamintay oo ay walaal iyo saaxiib ka dhigatay iyo weliba wiilal kale oo saaxiibo la ah oo qaarkood ku jira dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda qaranka. arrinta la yaab kale ee hadda banaanka soo baxday ayaa waxay tahay in gabadhan xaalad culus ay wajahayso isla markaana qaracan iyo xaalkeeda uu ku soo biyashubtay in ay meel xun xaalkeeda uu marayo isla markaana nolosheeda khatar xoogan ay ku jirto. gabadhan ayaa waxay sheegtay in wiil ay aamintay isla markaana wiilkan uu ku noqday nin xaasid ah oo fadeexad la daba kacay isla markaana rakaato uu ku haystay muddo aad u fog. waxaana ay sheegtay wiilkan oo lagu magacaabo Ibraahim inuu ka duubay video iyadoo qaawan isla markaana uu u galmoonayo. kadibna waxa uu ninkan u diray saaxiibkiisa oo muuqaalka sii faafiyay laakiin inta aan la qiyaamin ayuu biyo ugu daray kaniini taasi oo keentay in gabadha ay miir beesho. walaal saaxiib ayaan ka dhigtay laakiin waa nacas uu i ceebeeyey. aniga inaan hooyo noqdo ayaan rabaa. fadlan garab isiiya. ninkaas cadaaladda hala horgeeyo ayaa ay tiri. haddaba qisada gabadhan ku dhacday waxay ahayd mid bilihii ugu dambeeyey taxano soo ahayd isla markaana marba dhinac soo taagnayd. arrinta hadda taagan waxa ay tahay in raggaas ay u sheegtay walaalkeed oo ku jira dowladda isla markaana ka mid ah ciidamada dowladda kaasi oo xiray labadii wiil. waxaana lagu sii daayay go'aan ah in haddii gabadhaas muuqaaladeeda lagu arko baraha bulshada iyaga la toogan doono. waxaa lagu xiray saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. sida dad xog ogaal ah ay sheegeen gabadhan waxaa markii raggan la sii deynayay laga masaxay guud ahaanba sawiradii iyo muuqaaladii ay ka hayeen. halka marka uu halkaasi marayay ay arrintu sii xumaatay. mar qor ayaana la arkay mid ka mid ah asxaabtii uu horey ugu diray oo baraha bulshada soo geliyey sawirka gabadhan oo sida la doono laga yeelanayo. qof walba oo sawirkaas iyo muuqaalkaas hela ayaa la arkayay oo gabadha ku rakaateynaya ama waxa aan doono ii sameey ama waxaad noqonaysaa qof fadeexoobay oo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay baraha bulshada ku arkaan iyada oo cawradeedu ay qaawan tahay isla markaana loo galmoonayo. ninka u galmoonaya wejiga ayuu qarsaday laakiin iyada wejigeeda ayaa la arki karaa. xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa gabadhan ay u dulqaadan weysay culayska haya kurbada haysa iyo weliba dhibaatooyinka kale ee wajahaya nolosheeda iyada oo cabsi ku nool mar walbaana isku dayaysa inay qanciso ninkaas ayaa waxaa suura gashay in markaasi waxa uu doono ka samaysto qof kale oo uu siiyeyna muuqaalkan wuu soo wacayaa wuxuu leeyahay ama waxaan ii sameey ama adiga ayaa sharaftaada hoos aan u dhigaya. laakiin xaaladdu waxay ku soo biyashubatay ugu dambeyn in wejigeeda toos ay u soo dhigto baraha bulshada ayna soo fadhiisato iyada oo tiri dhibaato weyn ayaa ay haysata Soomaaliyey. hooyo Soomaaliyeed inaan noqdo ayaan rabaa. wallaahi uguma talagelin in aniga jirkeyga aan iibsado ama jirkeyga xumaan lagu sameeyo. waxaa laygu daray kaniini biyo oo uu ii siiyey ninkaasi. sidaa daraaddeed haddii cadaalad ay jirto ninkaasi sharciga la ii horgeeyo. waxaana uu si gaar ahaaneed walaalkeed u raadinayaa raggan oo la doonayo in cadaaladda la horkeeno. waatan iyadoo afkeeda ka qiranaysa dhibaatadii dhacday isla markaana
waxa ay bayaan xoogan u dirtay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan wiilasha Soomaaliyeed ee reer Muqdisho in ay raggan gacanta ku soo dhigaan oo aysan noqon xaaladeeda mid indhaha oo kaliya laga eegto. fiidiyogan waxaa iga duubay nacas dhalay oo ay oo kalaba oo pastor oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. fiidiyogan waxa iga duubay biyoba waxa igu daray kaniin maalahan wax daawo oo igu daray anyway fiidiyoga buu iga duubay waxa sameeyay oo igu rikaateen jira asi kaligiisna igu murid kaateen jirino cadeynteedana magaalada Muqdisho taala hore baa u xiray nimanka ma fahanteen hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jiro u dirdiro saaxiibadii ah ma fahanteen anyway farxan qarole lagu dacbeeyay waa la xiray cid taqaano hadda adiis marka imaadayna caaw waa arkay fiidiyogii wareegay anyway hadduu sharci jiro Soomaalina ma jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damkhanayo oo ii damkhanaysan please maanta garba idinka ahayn ma haystaani garba idinka ahayn ma haysto gabar la farxmeeyo ama la qasbaanin anigu ma horeen maanti walaasha bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo walaasha iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adeeg kugu dhici karta abaa please xumaan ha ii fahmin anu hadaa naag wax aniga sameey ahay please fiidiyowga waa aragtay sax fiidiyowga naag raaxaysanaysa diracna ma wada registerna ma wadato ilaahay baa kugu dhaarshay hadaa kalaamba beena sheegay ilaahay baa jeeday halkan sama uga ma kaco ma fahantiin fiidiyowgan markii hore liigu rakaateenay dad badan baa marqaati ka ahay oo social media ku jiro loo seeba marqaati ka ahay baabajay baa marqaati ka ahay mursal baa marqaati ka ahay wax cusub maaha please garba idinka ahayn ma haysto waa idin bariyaa please haddii aa gabar Soomaaliyeed ahay oo ay damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay please adinka garab idinkaga baahanay garab aa idinka ahayn ma haysto mustaqbal baa leeyahay hooyo inaa noqdaa rabo ubad aa dhalo hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado weligay waa jeclaa laakiin nacaska gabdho badan oo Soomaaliyeed oo aamusan oo maanta aan hadli karin ayay u badan tahay in marxalad noocan oo kale ah ay ku jiraan. Gabdho badan oo Soomaaliyeed oo daruufo kala duwan haystay ayaa looga faa'iideystay in muuqaalo galmo ah laga duubo. Baraha bulshada marar badan waa la soo dhigay gabdho Soomaaliyeed oo qaawan, kuwa kale oo loo galmoonayo, kuwa si qarsoodi ah muuqaalo looga duubay iyo kuwa iyagoo rababa muuqaalka laga duubay. laakiin taasi micnaheedu inta badan waxay tahay in laga faa'iideystay gabdhahaasi. Qaabkee ayaa looga faa'iideystay? Qaar waxaa la siiyey daroogo oo iyagu jirkooda maba ogaba mana kontarooli karaan wax walba oo lagu sameynayo. Qaar daruufo ayaa haysta oo waxaa la leeyahay haddii aad doonaysid in daruuftaas aad ka baxdo waxaan ii samey. Qaarna iyaga ayaa u bareera oo doonaya in sidaa lagu sameeyo inkastoo aysan badnayn. Magaalada Muqdisho mashruucyo kala duwan ayaa ka socda. Mashruucan waxaa la sheegay qaarkood inay ku lug leeyihiin dad dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo baasabooro wata oo hablaha reer Muqdisho ku beer laxawsada in ay wax walba u qabanayaan oo ay qurba joog yihiin. Iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa sidoo kale waxaa aad u sii badanaya marba marka ka dambeysa muuqaalada galmada ah ee laga duubayo dad Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed oo sharaf leh, wanaag iyo ixtiraam badanna naga mudan. Waalid badan oo Soomaaliyeed ayaan maanta hadli karin oo og in gabdhahooda la khiyaanay islamarkaana sawirro iyo muuqaalaba laga duubay. Haddii ay hadlaanna gabadhooda ayaa fadeexoobaysa. Rag fara badan oo qaarkood awoodda dowladda isku haleynaya ayaa dhibaato xoogan maanta ka wada magaalada Muqdisho oo gabdhaha Soomaaliyeed muuqaalo ka duubaya, sawirro ka qaadaya, kadibna ku handadaya haddii ay iswaalaan oo wixii qofkaas uu doono ay u sameyn waayaan inay ka shalaayi doonaan. Arrintan wasaaradda diinta oo qaafta marnaba iyadoo ka hadlaysa lama arkin. TikTok-ga oo dhibaato xoogan u keenay bulshada Soomaaliyeed ayaaba loo taaglayahay oo gabar walba ay soo dhigaysaa horaadkeeda iyo dambeedkeeda. Ka waran ninka maalin walba gabar Soomaaliyeed sidan u rakaateynaya. Qaar ayaaba aaminsan bulshada ka mid ah inay jiraan shirkado arrintan maalgelinaya oo doonaya in diinta Islaamka ay fadeexeeyaan oo ay muuqaal kale u sameeyaan. Waxaana arrintan ay u muuqataa in meel xun ay ku sii socoto. Odayaasha dhaqanka, culummada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana qof ka hadlaya ma laha, laakiin qof walba wuxuu ka hadlayaa beesheeda. Kursi hebel lama siinin, qabiil hebel inaga ka qabiil badan, dhul hebel anaga qabsanay, deegaan hebel weerar ayaan ku qabsanay iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Sidee loo joojin karaa ayay kula tahay adiga waxyaabahan anshaxumada ah ee rag Soomaaliyeed
dabcan ay ku dhaqmayaan. Ragga Soomaaliyeed ma wada xumo ee qaar ayaa xun, dumarka Soomaaliyeed ma wada xumo ee qaar ayaa xun, waalidiinta Soomaaliyeed ma wada xumo ee qaar ayaa xun. Inta wanaagsan sidee arrintan uga dhiidhin kartaa? Muuqaalkan qaybta commentiga ayaad xor u tahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay Guuxa Wararka Tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay. Subscribe dheh channelkeena, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin. Mahadsanidin.